waanadan waxay ku socotaa rijaala wa nisaa'an carabiyan wa cajawiyan xaakiman wa maxkuuman caabidan wa caaliman ghaniyan wa faqiiran بدوية وبلديا إن الله سبحانه وتعالى أنك عبسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين أنار قلوبنا بالإيمان وأحيا نفوسنا بالإسلام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا ليال وأنا ذي وحكو سعوتا قبلها مسلماتك خاصة waxay ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed ee sharaftoodii ku dheelaayo sharaftoodina lagu dheelaayo inay Allah subhanahu wa ta'ala ay ka cabsadaan oo sharaftoodii ay ilaashadaan gabadha muslimadda ah ay mu'minada ah Ilaahay jalla wa ala ayaa ku abuuray asigaanu ku keenay koonkan quraxda Ilaahay ku siiyay waxaa la doonayaa inaad nicmatu shukri aad la timaado ilaahay aad ku mahad celisay subxaanahu wa tacaala la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi buu allah subxaanahu wa tacaala odhanayaa waxaan ka hadli rabaa khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee sharaftoodii ku dheelaayo sharaftoodina lagu dheelaayo waxaad maalin kasta maqlaysaa gabar ayaa bajaaj lala fakaday meelaa la geesaday waa la soo farxumeeyey waxaad maqlaysaa gabar ayaa hotel waxa weeyaan wiil la ballantay 10 wiil baa lagu kufsaday waxaad maqlaysaa gabar ayaa Facebook la soo galiyay ayadoo nin muuqaal kula shukaansanayso oo video ka soo duubay baraha bulshada la soo dhigay goormay waxa dhacayeen dadka muslimiinta waa inay fikiraan rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri mu'minka laba jeer god laga maqaniino oo gabdhaha muslimaadka inay cibra qaadasho u noqoto tan oo maalin kasto dhacayso cibratan li ulil absar Allah subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan oo Allah wuxuu oranayaa yaa ayyuhalladina aamanu taqullaha haqqa tuqatih dunki Allah iyo aayaadkiisa ee nabigiisa warumeeyayo ilaahayna ka cabsada haqqa tuqatih ayu Allah subhanahu wa ta'ala oranayaa gabdhaha muslimaadka ah ragga muslimiinta oo gabdhaha walaalahooda caybeynayo gabdhahana waxa loo baahan yahay marka ugu horeyso inay ku dhaqmaan sharciga Ilaahay iyo diinta Ilaahay gabadha muslimadda inay qaadato xijaabka horta marka ugu horeyso waxaaba naga maqaba gabadha inay Facebook soo dhigto yaa baneeyay sharciga islaamka ma uusan baneynin gabadha markay Facebook soo dhigtay gabadha markay jirkeedii bedeshay gabadha markay xijaabki ka tagtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu imtixaanay وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بالله سبحانه وتعالى أرنيا مصيبة إنكم الدعوة إلا وحي قعمه كسبت معنا وحا كل عيونا قبلها أيها كسبنا أيوه أيها راتسنا أيوه قبله وإن الحجاب غاتان شرع الإسلام كسدوا قوة وإن إنكم الراتسان وأشكا سدان الله سبحانه وتعالى كعب صدا قبلها مسلمات كاو رجع مسلمين كاو أذنكن عيوها أترى الراعيسان رسولك عليه الصلاة والسلام أي يري من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قفك مسلم عيبتي سأستر إلهي عيبتي سأستر يوم علامة قيامة ذاتك مسلمين تلا الدنيا إن عيبتو ذات أسترتان مسلمين تعيبتو ذي آيات بنانك صور جيسان ميادا دونين ولالك يا مسلم كاو إنه عيبت هذا أستر معلنت قيامها ومعلنت والولك والبهارك وجر الله سبحانه وتعالى وحاكم ياي وددك كلا ساراي ويوم الفصل ويوم القيامة نول بمعلنت ساكو الرئيسو الله سبحانه وتعالى وحو أرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد دونك الله آياتك النبي سورميو إلهي إنك عبصدا نفك السنة في رسو وحي بريه ورمسانيسو ما أنت الدنيا جوكتا واتكتغيسا وأنا وحي كسعتا رجالا ونساء عربيا وعجويا حاكما ومحكوما عابدا وعالما
غنيا وفقيرا بدويا وبلديا إن الله سبحانه وتعالى أن كعبسنا إلهي مركا كعبسنا أي أوامرت إلهي فرتومينا منهياتك إلهي نكارينا قبلها مسلماتك وجركينا الصورة ورسولك عليه الصلاة والسلام أي يري المرأة عورة قبل جركينا عوروي إني بنانك صورتكتو أي رجع أي تستماهن marka ugu horeysa hadii shariicada aad ku taagnaataan dhibaatada maanta idin haysato inuu kuma dhicin lahayn dadka dhiirigelinayo oo dhahayo gabdhaha waad fiicintiin hore u socdo dhahayeen dadkaasna in Ilaahay u toobad keenin ataa'ibu min dhanbi kama la dhanbala ayu nabi kaleey salaatu wasalaam qofka toobad keenay asigoo dambaabin ayaa lamid yahay Ilaahay u soo laabtay dhamaantiinaba Ilaahay u soo laabtay Ilaahayna ka cabsada oo sharciga Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaqma وقبلها مسلمات رسولك عليه الصلاة والسلام مركو الله سبحانه وتعالى ولخدها محيري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قبلها هذا إيو حاسسك هذا إيو قبلها مسلماتك جيركو ذا كوكريان درك حجابك قبل مركا إسا صرته gabadha markay waxa weeyaan ragga iska qariso qaabka la isku shukaansanayo ama qaabka la isku doonayeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri nin yoosan la khaalin noqonin haweeney qol yoosan la gelin macna inuu gabadha kaligeeda joogto qol inuu galo leeyahay shaydaan ayaa sidixinayo ragga muslimiinta oo Allah ka cabsada Ilaahay u toobad keena gabdhaha muslimaadka ah maalin kasto waxa la kufsanayo waxa sharaftooda lagu dheelaayo waxay sharaftoodii ku dheelayeen waa gabdhaha muslimaadka ah gabdhaha khaasatan Soomaaliyeed Ilaahay ka baqa Ilaahayna u soo laabta in Allah yaqbalu tawbata an ibad Ilaahay adoominkiisa toobakeenka uu ka aqbala Allah subhanahu wa ta'ala ayaa oranayo qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah in Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ba Ilaahay yiri adoomankeeyo israafka sameeyo naftooda ku xadgudbayo la taqnadu min rahmatillah haka quusanina rahmadda Ilaahay inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa ayada uu ku soo islaamay Wahshi ibn Harb Ilaahay u soo laabta toobadkeen la imaada maanta waad nooshihiin xayaatada way ku jirtaa gabdhaha muslimaadka ah kuwa fanaaniinta ah kuwa Facebook isoo dhigaayo oranayo tartana wax kula jiraaye share gareeya oo comment ka soo dhiibta boqol la gaarsiya subhanallah yaa ku banay walaashay muslimadahay bal dhageysa sheekhuna Sheekh Cabdiraxmaan markuu ku hadlayay gabdhaha iyo wiilasha fiiriyo iyo muuqaalada isku diro waa xaaladda maanta taagan ilaahayna ka cabsada oo ilaahay u toobad keena wa sallallahu ala nabiyina Muhammad